Sheekadan waa sheeko xaqiiqo ah, waxayna ka dhacday Sacuudi Carabiya, Carcara. Sheekadu waxay ku saabsan tahay nin Sacuudiyaan ah oo ka soo jeeda gaar ahaan Carcara. Ninkan waxaa la dhalatay afar walaalood. Afarta walaalood dhammaantood way guursadeen, ilaa markii laga reebo asiga. Mar walba dadku waxay weydiin jireen ilaa hadda sababta uu u guursan la'yahay. Aad ayuu u dhibsaday su'aalahaas ku saabsan guurka oo ay weydiinayaan dadka. Familkiisa iyo asxaabtiisa markay arkeen ninkan inaan lagu soo hadal qaadi karin wax ku saabsan guurka, way iska daayeen afaarihiisa dhan way ka baxeen. Isbuucyo kadib waxaa lagu casuumay xaflad aroos. Badanaan carabtu waxay caado u leeyihiin in haddii aroos ay dhiganayaan, nimanka iyo naagaha laba meel ay ku kala dhigtaan. Arooska marka qaybta ragga waxaa lagu qabanayay meel saxaro ah oo magaalada aad uga baxsan. Asigoo gaarigiisa wata xilli habeen ah ayaa wuxuu maqlay naag ku qaylinaysa cod oo dhahaysa "yaa caawiya, ii badbaadiya." Gadaal ayuu u soo fiiriyay, keliyata wuxuu arkay iyay gadaashiisa socota. Aad ayuu u cabsaday ninkan, gaarigiisa ayuu quraan ka daartay, horena u sii socday. Laakiinse ilaa weli waxaa daba taagan codkii naagtii oo ku qaylinaysay "ii caawiya." Mar badan ayuu gadaal u soo jeestay, wuuna arki waayay ilaa yeyda mooye. Ugu dambeyn wuxuu tagay halka uu socday oo ah goobta arooska ka dhacayay. Dadkii halkaas ku sugnaa qaybo ka mid ah ayuu la wadaagay qisada ku soo dhacday. Kadibna ayaga waxba ma aysan ka soo qaadin oo waxay dhaheen waa iska caadi arrintaas. Habeenkii markuu soo laabtay subaxii, qaar ka mid ah asxaabtiisu la wadaagay waxayna ku dhaheen inakeen maalin caday ayaan aadaynaa. Way aadeen balse way soo arki waayeen ilaa raadkii yeyda mooye. Maalin maalmaha ka mid ah wuxuu tagay meel majlis ah oo dadka ay wada fadhiyaan. Kadibna wuxuu ku dhahay anigu waxaan rabaa inaan guursado. Dadkii way la yaabeen oo waxay dhaheen adigiyo guur kaafi kala dheeriyaa tihiin. Kadibna intuu isla yaabay wuxuu u tagay nin sheekh ah, wuxuuna ugu sheekeeyay arrinta ku dhacday. Wuxuuna dhahay guurka aad ayaan u necbanaan jiray, aad ayaan u dhibsan jiray qofkii igu soo qaada arrimo ku saabsan guurka. Habeen habeenada ka mid ah anoo ku sii jeeda aroos waxaan maqlay cod naag ku qaylinaysa "ii badbaadiya, ii caawiya." Gadaal markaan u soo fiiriyayna waxaan arkay yey daba socota. Maalmo kadibna waxaan go'aansaday inaan guursado oo keliya. Fadlan ii sharax bal waxa igu dhacay. Sheekhii aad ayuu ugu qoslay wax ku dhacay, wuxuuna ku dhahay jin ayaa kugu lifaaqnaa oo kuu diidayay inaad guursatid. Weliba jinkaas wuxuu ahaa jin naag ah. Sida la wada ogyahayna yeyda waa xayawaanka kaliya ka adag jinka. Waxay la qaylinaysana yeyda ayaa iyada ka shaqaysanaysay. Sababta hadeertaan guurka u soo bandhigatana hadeertaan xor ayaa tahay. Qofka rabtid ayaa guursan kartaa, jinkina waa ka xorowday. Sheekadan waa sheeko run ah, weliba waxaa laga soo daayay TV-da Sacuudiga kuwo ka mid ah. Dadka qaar inay aamini waayaan laga yaabaa jinka asiga wuu kuu jeedaa laakiin adiga uma jeedid. Sababtaas waaye marka waxa markasta lagu dhaho marka guriga adoo kaliya ha joogin, marka seexanaysa adoo qaawan ha seexanin, waxa laga yaabaa inay jinkaas ku malacsadaan. Wassalaamu calaykum.